labaatanka xubnood oo sharci darrada naloo ka qaaday oo sulfo naloo kaga gooyey oo beesha caalanka iyo dowladda federaalka ay nagu cadaadisay annaga saxiixka ayaa kuma fadhiyaan cadaadiskii iyo baalkii dhibaatooyinkii ee intaas soo jiitamay tanasulaadkii aan ku samaynay ayay uga mid noqdeen baarlamaanka mar labaad haddii ay baalkii ay la yimaadeen inay barnaamijkaa ka hor yimaadaan oo maamulkii galmudug uu ka shaqayn waayo marka koobaad waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan baarlamaanka galmudug shaqadoodiina ay wax ka qabsadaan haddii ay dhici weydo muddo 12 saacadood gudahood haddii ay dhici weydo waxaanu caddaynaynaa marka horena inaysan annaga saxiixka ayaa ku fadhiyin shaqada galmudugna ay socon doonto insha allahu qaadir aanan magacaabi doono 20 xubnood ayagoo sharci ah aan magacaabi doono 20 xubnood ayagoo sharci ah beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxaanu weydiisanaynaa cadaadiskii hore ay nagu cadaadiyeen isbaaru nagu noqday isbaar labaad inaan loo celin in la qabto guddiga marka madaxweynaha galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug dooran lahaa ma aqaan haddii sida ay wax u arkeen halkaas hakadaa ka galay waxay soo jeediyeen barnaamij aan sax ahayn oon macquul ahayn oon la qaadan karin oo ah marka horeba guddiga doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada inay qaataan baawur qaybsiga inta ka dambayso xukuumaddu ay madaxweynuhu madax u yahaana inay baawur sheerinkaas la wadaago oo si sax loo wadaago arrintaasi marka waxay noqotay mid aan la aqbali karin baarlamaanku markuu dhismay kadib saad ogtihiinba waxaa laga gudbay urur waxaa laga gudbay koox waxaa laga gudbay qabiil galmudug waxaa u dhismay nidaam baarlamaanay isku darsatay ay dooratay baarlamaankaasaana wixii markaas ka dambeeya doorashada inay daadiyeen loogu talagalay baarlamaankii markay ka dhex arkeen inaysan malaha guul ka helaynin way khilaafeen way qaadaceen muxuu ahaa waxay qaadaceen doorashadii saad maqlayseen oo shaaciyeen ayaga waxyaabo aan macquul ahayn sheegay baarlamaan ku sheegay in la boobay doorashaduna ku sheegay inaysan ahayn mid loo dhan yahay taasi waa midaan meesha ku jirin doorashadu waa la arkay inay doorasho sax aheeday oy xal aheed xaq aheeday intaas kadib waxaan marka soo jeedinaynaa 20 xubnood oo sufa ay keentay oo markii horeba loo arkayay xal oon xaq ahayn lagu baxshay oo galmudug lagu badbaadinayay inay doorashada ka qayb galaan oo u soo fadhiistaan baarlamaanka kala fadhiyadooda iyo shaqadooda hadday diidaan sidaas odayaashu waxay soo jeediyeen oo heshiis ku yihiin ood ka arkaysiin maanta oo bisha January ay tahay 22 sanadka uu yahay 2020 waxay soo jeediyeen oo ka codsanayaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka intaba in 20 xubnood loo soo celiyo si loo waafajiyo baarlamaanka galmudug oo ay u noqdaan baarlamaan sax ah oo odayaasha saxiixooda ku yimiday una buuxsamo baarlamaanka galmudug oo la dhihi jiray 89 xildhibaan khilaafna ma adkaysan karto calooshaada ka bixi khilaaf mana qaadanayno khilaaf waxaan beeninaynaa dad baa dhadhahayay xildhibaanada waa la soo gacan maroqsaday xagga laga keenay waa been looma dhamadhahayay xildhibaanada saxiixayaalkii baa fadhiya 68 xildhibaan dadka saxiixay baa ka jooga raggii baa wada fadhiya saxiixayaalka oon waxba ka maqnay taasaasay been ku tahay waxaan kala cadaynaynaa wadaadada anigu la hadlay waxba melihi sufo dhimbaa yiraaliye ha karaama seegina habaar lagu kari waaye waxba loo sheeg maayo wax loo sheeg wadaadada waa lagala quustay sufo waa looga quust dadka xildhibaanada oo ay soo magacaabeen baa waxaan leenahay beelaha 12 aad ka dhalateen ayagaad ka mid tihiin ayagaan idin nabcayn idinkoo xildhibaana oo la jaan qaadaya xildhibaanada kaleeto imaada haddaad imaan weydaan 12 saac qof in lacag dhigayaa ma jiro waxaan soo xulaynaa xildhibaano kuwa xaqa yaan soo xulaynaa beesha caalamka iyo dowladda dhexana waxaan ka codsanaynaa xildhibaanadii awalna oo ka dhacayo xal kale moodaya xal lama hayo inaad noo soo celisaan dadaal badan oo dowladda ugu horeyso oo odayaashu isa u kala kicin iyo inta wax garanaysa ayaa lagu bixiyey markii u dambeeyey wax annagu xal aan u qaadanay
laakiin aan sax ahayn ayaanu aqbalnay si ay u dhisantay galmudug maxaa waaye waxa waaye 20 xildhibaan ayaan nimankan wadaadadan ehlu sufa oo ay saxaq u lahayn beelahay ka tirsan yihiin ma ahan qabiil iyo sufa ma jiro waa dad beelaha ka tirsan oo aan naqaano beelahay ka tirsan yihiin ayaa waxay go'aansadeen ama ku dhageen inay helaan awood qaybsiga qayb ka helaan 20 xildhibaan bay ku dhageen 20ka xildhibaan oo aan xaq ahayn in beelaha ay bixiyaan odayaashan aan gar ku ahayn beesha caalamka iyo dowladdana sida la sheegay ay xal oo arkeen annaguna markii dambe iyadoo xaq ahayn aan aqbalnay in wax dhismaan ayaa xal noqon waayey markii la diyaariyey oo la ogolaaday ayay xal noqon waayeen oo waxay noqdeen xal darradii aan ka caraynay koow ka noqdeen guddoomiyaha isi madaxweyne ku-xigeenkan leehay golaha wasiiradan saas leehay warqad ayaan la kala qortay dowladday ayagu kala qorteen 20ka xildhibaan baa warqaddu ka hadlaysay masiir kale oo dawliya ka hadlimayn wax kaloo xisaabi ka hadlimayn muddo xileedkooda inay ku dhammaanaysana waa ku qeexnay mar haddii marka xal ay noqon weyday wixii xalka annagu aan u ogolaannay oo haddii alla ku idmaaye waxba aysan dhismaynay dadkii wax dhisan lahaa iyo ummaddii iyo baarlamankii lasoo xiriyo shuruucdii lacag maray kow waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada 20ka ehlu sufa ka soo jeeda inay ku soo laabtaan golaha baarlamanka inay aqbalaan dastuurka galmudug haddii aysan dastuur lahayn oo sharci uusan jirin maamul xildhibaanada lama soo xuleen mana laisku yimaadeen dastuur bay leedahay xeer hoosaad bay leedahay inay dib ugu soo laabtaan qayb ay ka noqdaan oo baarlamanka dhexdiisa aysan ka jamhadayn ee cod iyo dastuur iyo kalsooni wax ku kala qaataan haddii taa la waayo waxaan caddaynaynaa inaanna isbaar aqbalayn waxaan caddaynaynaa inaanna sharci darradii aanan dib u sii fulinayn oo addimo u noqonayn waxaan u soo jeedinaynaa dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka iyo ummadaha daneeya galmudug dhibaatay qabtaa kow in dhibaatadeeda laga taxadaro oo aan loo celin 2 xibnahaas marka horeba halkan u bixino sharci darrada ahaa in odayaashii beelihii iska lahaa dib lagu soo celiyo si ay u noqdaan baarlaman isla jaan qaadayo oo sharciyeysan oo aan jamadahan lahayn